السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa waxtarka ay leedahay timirta. Geedka barakeysan ee timirta waa geed ka baxa dhulka kulaylaha ah, gaar ahaan dhulka aanay ku samaysnayn badi dalagyada kale ee la quuto. Dhulka ay timirta ka baxdo waxaa kale oo la yiraahdaa lamadegaan, waana dhul saxare ah oo cimilo ahaan aad u kulul. Timirtu waxa ay leedahay faa'iido badan, waxayna caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jirka aadamaha. Haddaba, faa'iidooyinka iyo mucjisada uu koobsaday geedkan timirtu ma aha mid la soo koobi karo, laakiin waxaynu xusi doonaa waxyaabaha ugu caansan ee laga dhaxlo isticmaalka timirta. 1. Timirtu waxay dhintaa heerka kolestaroolka ee dhiigga, waxayna ka ilaalisaa xididdada dhiigga qaada qalafsanaanta, sababtoo ah waxaa ku jira timirta maadada loo yaqaan pectin. 2. Timirtu waxay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxayna ka ilaalisaa xanuunka bawasiirka. Waxay sidoo kale fududeysaa marxaladaha uurka iyo dhalmada iyo dhiigga ka dambeeya, waxaana ku jira maado la yiraahdo fibrase oo aad u wanaagsan iyo sonkoro dhaqso u riiqma. 3. Waxay ka ilaalisaa jirka sumaha, waayo waxaa ku jira maado sodium, potassium iyo vitamin C. Sidoo kale waxay daaweysaa dhiig la'aanta, sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka iron, copper iyo vitamin B2. Waxay daaweysaa jiljileeca lafaha, oo waxaa ku jira maadooyinka calcium, phosphorus iyo vitamin A. Waxay daaweysaa appetite la'aanta, sababtana waa maadada potassium-ka ee ku jirta jirka. Waxay daaweysaa itaal darrada guud ahaan iyo wadne xanuunka, waxaa ku jirta maado la yiraahdo magnesium iyo copper. Waxaa ku jira maadada selenium oo ka hortagta kansarka, sidaa darteed baan dadka ku nool meelaha beeraha timirtu u aqoon kansarka. Waxaa ku jirta maadada daaweysa itaal darrada xagga galmada. Waxaa ku jirta maadada boron oo daaweysa rheumatism-ka iyo kansarka maskaxda. Waxay daaweysaa qaleylka, dubka iyo indhaha gurucooda, waayo waxaa ku jirta maadada vitamin A. Waxay daaweysaa xanuunada ku dhaca mashiinka cuntada riiqa, waayo waxaa ku jira maadada vitamin B1. Waxay daaweysaa timaha daata iyo daalka indhaha iyo qaleylka afka iyo infekshanka mishimaha. Taas waxa ay sahlaysaa maadada vitamin B2 oo ku jirta timirta. Waxaa ku jira maadada daaweysa infekshanka dubka iyo jirka. Waxay daaweysaa dacarta caloosha, waayo waxaa ku jirta maadooyinka chlor, sodium iyo potassium. Waxay daaweysaa xanuunada ciridka ku dhaca, waxaana laga helaa vitamin C. Geedka barakeysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinka laga helo, waana geed cunto ahaan ka sokow daawo ahaan loo adeegsado, isaga oo ka hortag u ah cudurro badan oo dadka asiiba. Diinteenu waxay dhiirrigelisay isticmaalka miraha timirta, isagoo nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyay inuu yiri, ma gaajoobo cid ay gurigooda taalo timir. Waxaana uu xadiiskani caddeynayaa oo markhaati ka yahay ahmiyadda ay leedahay timirtu. Timirtu waa cunnada ugu habboon ee lagu furo soonka caafimaad ahaan, sababtoo ah waxay u roon tahay dheefshiidka, waana cunnada si tartiibka ah caloosha u shiido. Waxaa intaas sii dheer inay dheecaanada iyo fitamiinada jirka ku jira isu dheelitirto markuu qofka muddo gaajaysnaado, waxayna sare u qaadaa appetite-ka qofka, iyadoo gaajada si dhaqso ah u yareysa. Waxaa intaas sii dheer inay gaaska iyo aashitada caloosha ay ka ilaaliso inay dhaawac gaarsiiso dahaarka caloosha. Sidaas awgeed waa in aan ku dadaalnaa inaan isticmaalno timirta.